beesha caalamka ee loo yaqaano saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay kulanka dhexmaraya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubinta ka dowladda Soomaaliya oo hadda kulamo uga soconaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in dhammaan ka qaybgalayaashu ay si wax ku ool ah uga qayb qaataan sidii loogu heshiiyo hirgelinta hanaanka doorasho qaran. Heshiiskaasi oo dhooraya habraaca doorashada kaasoo la gaaray 17 December sanadii aan ka soo gudubnay 2020. waxa sidoo kale ay hoosta ka xariiqayaan in natiijooyin kasta oo isbedel ah kii lagu heshiiyay oo ay ka mid yihiin geedu socodka kale oo kan ka barbar socda ama doorashooyin ka qayb ah loo dhamayn ama tallaabooyin kale aan ahayn hanaanka doorasho lagu heshiiyay ay noqon doonaan dib u dhac aan heli doonin taageerada saaxiibada Soomaaliya. Sida daraadeeda waxaan uga baaqaynaa dhammaan madaxda siyaasiyiinta in ay mudnaanta siiyaan sidii loo heli lahaa habkii hore lagu socday iyadoo jirin dib u dhac daraadeeda ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa mar kale ku baaqay in dhammaan madaxda Soomaalida inay heshiis wadar ogol ah ee isku raacaan ay yihiin ay gaaraan hirgelinta doorashooyinka si degdeg ahna arinta ay danta qaranka Soomaaliya ee ugu jirto ay uga shaqeeyaan. wakiilada beesha caalamka ee warkan soo saaray ayaa waxa ay kala yihiin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Belgiumka, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransa, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, ururka jaamacadda Carabta, Holland, Sudan, Sweden, Turkiga, Uganda, boqortooyada midowga Ingiriiska, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobe. Iyadoo warkan ka soo baxay beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ee weli kulamo magaalada Dhuusamareeb maalintii labaad uga soconaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo hogaaminayo madaxweyne Farmaajo, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo 5 maamul goboleed ee ka dhisan gudaha Soomaaliya. Sidoo kale hadalada ka soo yeeraya beesha caalamka iyo dowladda oo iminka shir kula jirto maamul goboleedyada ayaa hadana waxa barbar socda kulamo isdaba joog ah ay soo saarayaan in ka badan 14 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya, kuwaasi oo sheegay in marnaba aysan ahayn shirka ka socda Dhuusamareeb mid loo wada dhan yahay isla markaana laga reebay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaanshe Cabdullaahi. laftiisu shalay hadlay waxa uu sheegay in shirka ka socda Dhuusamareeb uusan ahayn mid loo dhan yahay maadaama laga reebay siyaasiyiinta gobolada waqooyi.